mashada laba caruur ayaa dhaawacay ilmo yar iyo hooyadii oo dhammaantood qoys qura ahaa ayaa waxaa sababay Roma Higaana oo shalay galab ka daayay magaalada Hargeysa. Haddaba telefishin Kalsan TV ayaa gaadhay goobtaas ay ka dhacday masiibadu oo Hargeysa kaga beegan koonfurta. Waxaanu halkaasi gudaha u galnay guriga ay jiifeen caruurta dhimatay iyo dhaawacay ilmo yar iyo hooyadii. Inta aanu qaadin dadkani ku soo rogmaday ayaa waxay indhaha igu qabanayeen goobta ay jiifeen iyo sidoo kale burburka ka muuqda guriga ay ku jireen. Haddaba waxaa noo suura galin aan la kulano aabaha dhalay caruurtani ku dadkani qaaday iyo dhaawaca ayaa waxaa telefishin Kalsan TV la hadlay mid ka mid ah dhalinyarta xaafadda degan oo badbaadiyay ilmaha dhaawaca waxaanu ka warramay sida ay wax u dhaceen. laga badbaadi karo oo dadkii dhaawaca ay ka badsan kari laayeen ma ahayn marka ay seelada ayaan joogay marka waxaan halkan waan soo daawasho tirey marka waxaan arkay reer halkan oo maalmadood soo galay kirada oo dabeedna meesha islaankii ayaa joogay reer qof xaafadda mu joogay marka waxaan arkay siyo laba caruurina ay hor u qaaday daadku hor u qaaday markii dambena waxaan arkay mid yar oo isaguna daadku si xafafinayo oo qalba oo kusii qabanayo marka anu shaqo kale ayaan taagnaa waan soo dabaashay ayaan yaraa waan soo dabaashay waan ka daba tagay kiyara waan soo qabtay markii kiyara aan soo qabanayna markii labaadna waxay tiraan in kiyara aanu keenay afar ciyaaleen ay si todoba hayeen labana way dhinteen midna waa kan soo qabanay waa afar kalena way hasay marka waxaan ku niri waa inaan kiyara ay waxay tireen email shirin markii labaad bay tireen laba kale ayaa iga maqan mid aan garab ku sido adag 720 cisho jiray iyo mid kale oo yaro isna yar ka daaweyn oo farjira ayaa maqan dabeeto waan deedeynay inantii iyadii caruurteeda meesha waa laga saaray markuu daadkii kala yaraaday markii dambana waxaan sameynay waxa la deedeeyay inantii neefkeedii albaab halkaas oo xaafadan ka qaaday ayaa laga soo saaray oo xarig lagu tooso kaga mariyay iyadoo meelay inanka yaraana waa la waayay waa la deedeeyay meeshii laga filanayo meeshii laga helay intii ismay lahayn xaafadan ayaa laga helay soo dhawaan jirin askar bayraalin jirtay sanadihii dambe meeshii waxay laga helay soo dhawo dad yar oo Soomaaliya ayaa deray meel ma haystaan ay degan yihiin dawladda Soomaaliya madaxweyne waxay ku codsanayaan meel nasiib si dhaxsan meesha dhaanka laga rabo dad meel degan karo ma aha maalin walba ku qaata ma si awlaad oo ku codsanayaan meel nasiib door gaaraysa dadka meel ay degan loo bedelo waa daan iyo dadweyne sanad kasta ama laba in dadka gargaar loo fidiyo oo loo gacmado iyadoo waxaan ku leeyahay diinta islaamka ka leeyahay waan xariis leeyahay oo waxaan ku leeyahay dhanka kale waxa uu sii maday madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi habeennimadii xalay ahaa gaadhay xaafadda ay musiibadu ku dhacday kaasoo uga warbixiyay sida wax u dhaceen waxa ay ku habsatay musiibadu waxa weeye markii telefoonka igu soo dhufatay la hoogay tibi aan soo cararan meel u waayay ee dooxiga dheeraaday ayaana dib isaga noqday kadib sandaqadii lagu kala gooyay dooxi biyihi waxa dhacday in ummadii ay badbaadin kari wada xitaa caruurtii yaa goorba soo degtay meesha laba habeen bay hoydeen marka laga kireeyay daraad laga kireeyay waxa weeye aqallaan ayaa meesha keentay على كل حال ما كاين الميت كيس لما هيو هويدي isaga intuu wada qaatay daadkii ayuu waxaan jeeray ku xidhnaba ka furtay dabad bihi koomi ku jirtaa markii inana meedkeedii makaan helay inana meedkiisu maqayn meeshu halka Abdullahi Rash telefishinka caalamiga Kalsan magaalada Hargeysa.